رئيسل وزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن حسن علي خيري oo bulshada magaalada Dhuuso Mareeb kala qayb galay munaasabada xuska sanad guurada 59aad ee xorriyada gobolada waqooyi dalka ayaa hambalyo u diray ummadda Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaare Khayre oo sheegay in 20 Juun oo ah maalintii ugu horeysay ee calanka Soomaaliyeed oo xor ah laga taago dhulka Soomaaliyeed ay tahay maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed. ayaa dadka Soomaaliyeed xusuusiyay in dhiig badan lagu bixiyay xornimada aan maanta ku naaloonayno waxa uu u mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay in dadka Soomaaliyeed ay ka xoroobaan gumeystaha. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo sheegay in aysan kala maarmin Soomaali ayaa ku baaqay in la adkeeyo midnimada isagoo inta raaciyay in hoggaanka dalku ay ka garaabayaan tabashooyinka ay qabaan deegaanada gobolada waqooyi ee dalka. Juun 1960 ayaa gobolada waqooyi dalka waxa ay xornimada ka qaateen gumeystaha Ingiriiska 4 maalin kadib oo ku beegneed 1 Luulyo. Gobolada koonfureed ee dalka waxa ay xornimada ka qaateen Talyaaniga iyadoo isla maalintaasna midoobeen gobolada waqooyi iyo koonfur. Nashaad Aadan Daahir, Kalson TV, Muqdisho.